Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa qiso aad u cajaa'ib badan, balse intaynan u guda gelin muuqaalkeena maanta, fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta faalooyinka ama commentiga. Sheekada uu maantana barnaamijkeena ku saabsan yahayna waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Sanadka markii uu ahaa 1954 waxaa garoonka diyaaradaha ee Tokyo soo galay nin xiran suud bunni ah. Tilmaamaha ninkaas laga bixiyeyna waxaa ka mid ah inuu ahaa nin caddaan ah, qofkii arkana aanu shaki ka gelin in ninkani uu yahay nin Yurubbiyaan ah, wuxuuna ku hadlayay dhowr luqadood oo Yurubbiyaan ah. Khaasatan wuxuu si fasiix ah ugu hadlayay luqadda Faransiiska, sidoo kalena wuxuu ku hadlayay luqadda Jabaaneeska. Maalintaasina garoonka wuxuu ahaa mid aad u saxmad badan. Ninkiina wuxuu soo gaaray baaritaankii ugu horreeyay, wuxuuna baasaboorkiisa u dhiibay baarayaasha ka shaqaynaya garoonka. Sidii caadadiisa ahayd, baaraha wuxuu eegayay baasaboorka, balse si kedis ah indhihiisa waxay u qabteen qoraal ku qornaa baasaboorkana waxaa ku qornaa ninkani inuu ka yimid dal lagu magacaabo Towreed. Baaraha oo ahaa da'yar ayaa wuxuu isku qanciyey inuu jiro waddan lagu magacaabo Towreed, balse isagoo aanu garanayn. Wuxuuna u dhiibay baarayaal kale si loo hubiyo inuu jiro dal lagu magacaabo Towreed, balse arrinka layaab kale ayaa wuxuu ahaa in maabka adduunka laga waayay waddan lagu magacaabo Towreed. Baarayaasha oo ka shakisan in baasaboorkani uu yahay mid feeg ah ayay baasaboorkii u direen baaritaan si loo soo hubiyo in uu yahay mid feeg ah iyo mid saxan. Hase ahaatee, waxaa la xaqiijiyey in baasaboorkani uu yahay baasaboor saxan. Ninkanina baasaboorkiisa iyo dukumeentiyadiisa way wada saxnaayeen, balse dhibka jira ayaa wuxuu ahaa waddanka uu sheegay inuu ka yimiday uusanba ahayn waddan jira. Ugu dambeynna waxaa loo wacay qolada amniga garoonka qaabilsan. Markii ay yimaadeenna waxay kaxaysteen ninkii si loo hubiyo loona baaro. Ninkiina waxaa la weydiiyey ujeedada uu waddankani u yimid. Ninkiina wuxuu sheegay in halkani uu u yimiday arrimo ganacsi, uuna dalka ku sugnaa muddo ku dhowaad usbuuc ah. Wuxuuna sheegay in muddadaa uu seexan jiray hotel ku yaala magaalada. Sidoo kalena wuxuu sheegay in Jabaan uu dhowr safar oo ganacsi u yimiday. Baarayaashii oo ku wareersanaa arrinkiisa ayaa waxay u keeneen maabka dunida, waxayna ku dhaheen inooga tilmaam halkan dalka aad ka timiday. Ninkiina wuxuu farta ku fiiqay dal ku yaala galbeedka Yurub, dhinacyadana ku haya Isbayn iyo Faransiiska, laguna magacaabo Andorra. Wuxuuna kaloo sheegay in weligiis uusan maqal Andorra, dalkanina lagu magacaabo Towreed. Markii ay baarayaashu fahmi waayeen arrinka ninkan ayna ku wareereen inuu in muddo cayiman ah joogo hotel aad ugu dhow garoonka, amnigiisana uu yahay mid la hubo, waxaase kaloo loo sheegay inuusan meel u bixi karayn ilaa arrinkiisa laga dhammeeyo. Ninkiina wuu aqbalay, wuuna qaatay amaradii la siiyey, waxaana la daba dhigay 2 qofood oo waardiyeysa si loola socdo dhaqdhaqaaqiisa. Ninkanina wuxuu sidoo kale watay boorso. Ninkiina wuxuu galay qolkii looga diyaariyey hoteelka. Habeenkii oo dhanna ma uusan soo bixin, waxaana dusha sare kala socday 2 qofood ee la raaciyey. Sidoo kale markii subaxii la gaarayna ninka ma uusan soo bixin, balse ugu dambeyn waxaa la galay qolkii. Arrinka layaabka leh ayaa wuxuu ahaa in ninka gebi ahaanba uusan ku jirin qolka, xitaa boorsadii yareed uu watay qolka kuma jirin. Arrinka kuwani oo dhan kasii yaabka iyo anfariirka badan ayaa waxay ahayd in sidoo kale la waayay baasaboorkiisii iyo dukumeentiyadiisaba oo markii horeyba la dhigay airport-ka. Waxaana la bilaabay in la sameeyo baaritaan xooggan oo lagu baadigoobayo dukumeentiyada iyo baasaboorka, balse raadin muddo saacado ah ku qaadatay ayaa natiijadeeda waxay noqotay mid lagu guuldareystay. Lamana helin wax caddeyn oo muujinaya ninkani uu yimid garoonka. Arrinka ninkanina waxay u ekeedba arrin aanba weli dhicin. Dhacdadanina waxay si dhaqso ah ugu faaftay gudaha dalka Jabaan, ilaa markii dambe ay wada qabsatay adduunka oo dhan. Kuna dhacdadani way ku kala aragti beddelnaayeen, balse waxaynu soo qaadan doonaa 2dii aragtiyood ee ugu xoogganaa. Aragtida koowaad ayaa lagu sheegay in ninkani uu ka soo dhumay meero kale oo u eg dhulkeena, si kedis ama si lama filaan ahna uu u yimiday halkan. Aragtida labaadna waxaa lagu sheegay in ninkani uu ku safrayo waqtiga. Markii uu ogaadayna in uu joogo sanadka 1954, wuxuu adeegsaday qalabkiisa, wuxuuna ku safray waqtiga, wuxuuna u laabtay sanadkii uu markii horeba ka yimid. Aragtida ku safridda waqtigana waxaa aaminsan dad aad u badan. Markii ugu horeysayna aragtidani waxaa laga soo dheegtay Albert Einstein. Ugu dambeynna waxaynu soo gaarnay gabagabada muuqaalkeena maanta. Waxaana rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. Haddii uu ka anfacay
tahayna like saar lana wadaag asxaabtaada fikirkaagana noogu reeb qaybta commentiga.